سفيرك وفدك إلى السعودية مدحda jaaliyadda culumaa diinka dumarka dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhida meel walba tagtid ba dhalinyaro ugu badan kulligiinba waxaan marka hore cid walba joogta idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waa mahadsantihiin soo dhaweynta diiran safiir adiga iyo jaaliyadaaduba marka labaad waxaan salaan idinka sidaa oo rabaa inaan deynta iska bixiyo madaxweynaheena madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo marka labaad anigoo magaciina iyo kan madaxweynaha ku hadlaayaba waxaan u mahad celinayaa madaxda dalka Qatar iyo shacabkaba runtii si diiran noo soo dhaweeyay laga bilaabo amiirka ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada oo runtii markaad halkan timaado aad dareemaysid inay tahay tusaale cusub oo ah dawladnimadeena inay soo noqonayso waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo waxaan aad ugu faraxsanahay markaad aragtid madaxda wadankan markay ka hadlaan Soomaalida waxay uga hadlaan si sharaf leh taas waxa keentay isku duubnida iyo madaxda aad halkan haysataan oo aan ahayn safaarad ama dawlad Soomaaliyeed kaliya laakiin aan aaminsanahay inay tahay odayaashiina dhaqanka culumaa diinkiina dhalinyarada oo ka shaqeeyay in si midnimo ay ku dheehan tahay aad u ahaataan jaaliyad waxaad xambaarsantihiin sharafta ummadda Soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaya Allah idin barakeeyo waxaan rabaa inaan idinkala hadlo xagu maraya dalkeeni fursad noocee ah ayuu dalku leeyahay maxaana uga aadan qof walba oo Soomaaliyeed inta aanan u gelintaa waxaad ogtihiin halkan markaan nimid maalin dhaweed aniga iyo wasiiradu inkastoo booqashadii aan ku nimid aanay weli dhammaan inaan kala saxiixanay heshiisyo waaweyn kan ugu horeeya wuxuu ahaa dhaqangelinta heshiisyadii aan hore ula galnay waxaana nala kugu bishaareeyay in jidadkii ay maalgashiga ku sameynaysay dawladda Qatar waan deyn nagu ahayn ay ka dhisi doonto xamar iyo jawhar iyo xamar iyo afgooye in la bilaabi doono bisanadkan inta aanu dhamaan la dhagax dhigi doono bilowguna sanadka soo socda bilowgiisa oo ahaan doono waa mashaariic jideedkii ugu weynaa oo ay dalkan dibadiisa ka fuliyaan waxa kale oo ay nagu wargeliyeen sidoo kale in mashaariicdii dhismayaashii ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda qorsheynta ama xarunta xisbiga iyaguna ay bixiyeen qandaraaskii iyaduna ay bilaabi doonaan qaarna ayba bilowdeen macnaheedu waxay tahay waa ay ka soo baxeen ballantii ay nagula ballameen waana ku mahadsan yihiin anigoo magaciina ku hadlaayana waxaan rabaa mahaddaas inaad nala qaadaan markaad aragtaan madaxda iyo shacabka qadariyiinta magaalada dalka jooga halkan waxaan kala saxiixanay markii heshiisyo cusub oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha sida la isugu xiri lahaa bangiyada dhaqaalaha labada wadan sida isu kaalmaysan lahaayeen ganacsatadu sida isugu imaan lahayd maalgashi ay sameeyaan lagu sameeyo dalka Soomaaliya iskaashiga gaadiidka badda cirka dekadaha iyo iskaashiga amniga waa heshiisyo waaweyn kulligood oo wax ku ool ah oo lala galo kaliya dawlad la aaminsan yahay inay mustaqbalka faa'iido keeni karto
inaad dawlad la geshid heshiis caalami ah ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha isu socodka dadka iyo badeecada laba wadan gaadiidka badda cirka iyo dhulka iyo inaad kala heshiisid inaad ka wada shaqaysaan amni waara iyo sidii la isu kaashan lahaay ma aha sanad iyo labo laakiin kontonka ama boqolka sano soo socota macnaheedu waxay tahay fahan cusub oo dalkani uu xambaarsan yahay oo ku aadan inay fahmeen inaanay Soomaaliya u arkin sida ay ahaan jirtay ama sida ay hadda tahay laakiin inay u fahmeen Soomaaliya sida ay noqon karto mustaqbalka waa sida ay ku salaysan tahay aragtida madaxweynaheena waa sida ay ku salaysan tahay aragtidayda iyo aragtida xukuumadda waa hadafka aan ka leenahay dawladnimada mustaqbalka kaasoo ah inaan fahamnay inaan leenahay badda ugu dheer Afrikateeda labaad inaan nahay dalka isku xira badda cas iyo Indian Ocean in biyaha baddeena hoostooda ku jira oo la cabo kaliya haddii la soo saaro ay ku filan yihiin in ka badan 1,000 sano Afrika oo dhan in khayraadka shidaal ee baddeena hoosteeda ku jira ay leeyihiin kuwa dalalka dunida maanta hogaamiya in dhulbeeraadka la tabcado oo tabcan karo oo dalkeena ku yaal uu quudin karo ugu yaraan qaaradda Afrika nuskeed in dahabka dhagxaanta dalkeena yaala ay yihiin kii dunidu u soo ordinayd in kaliya juqraafi ahaan dalkeenu meesha uu ku yaalo iyada lafteedu ay tahay dhaqaale socdo in baddeena kaliya 700 bilyan oo dollar jid ay marta ay tahay hawadeena nasaf loogu jiro waa nimco ummadda Soomaaliyeed ay ku fadhido aanay ku fadhi karin haddii aanay wax ka bedelin dhaqankii dawladnimadeeda ku salaysnaa ku dhawaad 30 sano la soo dhaafay haddii aad aragtid marka dawlad rabta inay Soomaaliya ula dhaqanto sidii hore si ka duwan la gashay heshiis ku salaysan 100 sano u aragta dadkeeda si ka duwan dunida inteeda kale waa dawlad annaga naga aragti dheer nooga aqoon badatay waxa annagu aan haysano sidaas daraaddeed ayaa waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer Qatar u sheego oo ay muhiim tahay in shaqada waddankeenu aanay ku salaysnayn sanad iyo labo inaanay ku salaysnaan karin dan qabiil ama dan gaar ah inaanay ku salaysnaan karin gobol iyo aragti kooban laakiin inay ku salaysan tahay haddii aan isdaba qaban weyno haddii sida aan ku jirno si ka duwan aan u dhaqmi weyno waxaan niyadda ka jebinaynaa gabadhii halkan soo istaagtay ee waddankan ku dhalatay oo aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay khayr ha siiye ay jacayl waddaniyad ku soo barbaariyeen iyadu weli ay taagan tahay mas'uuliyadda ay nagu leedahay ayaan ka gaabinaynaa niyaddana waxaan ka jebinaynaa sidaas daraaddeed waa inaan ballan ka qaadnaa kumanaanka iyadoo kale ah inaanay ku noolaan mustaqbal xumo dalkiinnii xagguu maraya annagu dalka waxaan ugu nimid iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay soo dadaaleen meelna ay soo gaarsiiyeen laakiin meesha la soo gaarsiiyey aanay ahayn meel uu dunida la jaan qaadi karo dhaqanka aan ugu nimid aanu ahayn dhaqan lagu aamini karo hiigsiga aan ugu nimid
aanu ahayn mid ilaalin kara khayraadkii hadda aan idiin sheegayo. sidaas daraaddeed madaxweynaha iyo anigu markii aad noo igmateen inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed oo aan aqbalnay inaan noqono shaqaalihiina idinka idiin shaqeeya oo aan aqbalnay mas'uuliyaddeena ugu horeysa inay tahay inaan xoolihiina dhaqaaleyno ama ilaalino ama anagu aanan qiyaamayn. waxaan sameynay wax la yiraahdo waa maxay waxa ugu horeeya oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku waajiba. waxaan garanay inay tahay marka hore inta anagu aanan dalka wax u qaban inaan dalka dhibaatay. macnaheedu waxay tahay anigii madaxweynuhu inaan jeexano siyaasad ah inaan aniga asagu ka madax bannaanahay musuqmaasuqa, ka madax bannaanahay qabyaaladda iyo nin jeclaysiga, ka madax bannaanahay in shisheeyana iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaareen, ka madax bannaanahay in milyan ama 2 ama 3 ama 100 milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa. tan labaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballanayna waxay ahayd sidee baa loo bedelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax Soomaaliyeed la yahay. waxay noo soo baxday qeexitaanka ah maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd inay noo sahlanaan doonto haddii Ilaahay uu na garab galo iyo ummadda Soomaaliyeed inaan wada shaqayno. waa taariikh cusub marka in weli qof Soomaaliyeed aanu ballan ka maqlin 21 bilood aan wada joognay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayra wada shaqayn waayay. intaasi waa inta ugu yar oo aad waajib noogu leedihiin. waxaan idin ballan qaadayaa inaan sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shakhsiga. waa maxay hadafyada aan ka leenahay marka dalka Soomaaliyeed inta aanan wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay kala hadlin iyagana